الله الرحمن الرحيم. ضمان مرتدى انت لو يهي مرتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا تسولوين يا مرتدى أجنبي صاحبنا نجا عاوية دورشوي كي يضرها كله إنه يمد ميرا فوق لما تدور تسولوين يا وكم هاي أمباسادة يوروبي يوريكو نجا تكتاي ميشيل أو دنمارك جوجا iyo hay'adaha kale oo aan tiri karin ba aad iyo aad baan iyaga ugu soo dhaweynaya Soomaaliland gobolka Awdal Boorame iyo xafladan ba ajnaabka naga soo qayb galay naga caawiyo doorashooyinka welcome aad iyo aad baan soo dhaweynay soo dhaweynta kadib Ilaahay baa mahadla abaartii naga saaray Ilaahay roobka haynoo siyaadiyo Ilaahay dalkeena barwaaqaha ka dhigo oo abaaraha ay naga saaro إلهي عذرنا شبك كمية هاي مال والله دكتور إلهي هاي نجاسارو إلهي عذر يعني بعطو يهدي واحد نجاهي دعاء كديم حفلة درمانتها وحنا دي أذكر ما هذا كوميشن كقرنكا وهوشو دي سيدات كي يقول ريبو وشاقي سحر كسيمو وددالة ووطنيمة إلا هذا وسوقتي هذا نوضه وأكو همونييننا وأنو كقرب تاجرنا هاي وأنو كرسونا هذا الحزب كلية حكومتنا هاي قاعد بحضر واصيننا وحل يحاول الموضوع هذا تاسنا وما هذنا قاين كمشن بشر نوفمبر 6 كذا وحى لفينا يا إلهي إذا كيس إنه هو سودوبا أو نبضة إلى ندور شجره وتذكر ندور شجره maanta waxaynu qaybinaynaa kaararkii shalayna waxaynu galnay diiwaangelintii aniga waxay la tahay inay doorashooyinkoodu aad iyo aad u dhib badan yihiin oo ay aad iyo aad u kharash badan yihiin inagoo dal yar oo si la sheegay aan ictiraaf caalami haysan oo dhaqaalaheenu kooban yahay oo baahideenu badan tahay oo aynu hoos ognahay dhaqaalaheenu intuu yahay iyo baahideena gudaha haddana doorashooyinkii waxay inagu bilaabmeen si qiimo badan oo hawl badan lagana maarmi maayo oo haddaynu doonayno dhisay dawlad dimuqraadi ah oo sida caalamkuba yiri dimuqraadiyadu way hawl badan waa si laga maarmi waayay sharciga hogaamisa haddii aynu doonayno waa inaynu sameynaa doorashooyinkii maanta dalka waxaa laga sameeyaa waa 4 doorashada dawladda hoose doorashada wakiilada tii guurtida oo iyada wari qaabkeeda lagu heshiin iyo madaxtooyada afarta ay diiwaangelin waa shan maanta madaxtooyada waxay ugu joogtaa diiwaangelintii oo awgeedin kharashka iyo hawsha iyo saacadaha ku baxay iyo xuduudda ciidan leh ee nabadgelyo leh ee dhaqaale leh ee abaabul leh ee waqti lumis leh ay naga gaarayso diiwaangelintii maantana intii lag bay naga doonaysaa inaynu qaybino doorasho kaararka codbixinta weli waxaa inoo hadhay maalintii doorashada waa 3 doorasho isa saaran bay nagu tagtay doorashada madaxweynuhu 3 doorasho oo isa saaran oo qiimaheeda iyo culayskeeda leh dhinac walba ayay nagu tagtay waa laga maarmaan waa inuu fulinaa waayo haddaynan madaxa dooran waynaan ridi karin meelna noqon laakiin waa inaynu helnaa xal sida ka qiimo yar oo ka dhib yar waxaa inoo hadhay doorashadii baarlamaanka oo muddo dhaafa si la sheegay guurtidii oo inaan weli wada jirin dowladii hoose oo iyaguna muddo dhaaf galaya qaran ahaan waa inaynu wax iska weydiinaa in doorashooyinkana aynu soo kulno isku rarno kharashka doorashooyina kana yarayno doorashadana si sida ka dhib yar aynu u qabsano إلا عالم كمجد وحنا هاي سعيد هاي ستاي دل شنتي سنة لكن من هذا لو دورتي يحس بما يدور شو كجرا وضدك ما وصل لك إلى هاي وادباته وادو خرب تاجر تاو حنا كتر يا قرنها إن نكفر سنو وردور شيء كان سنفضل فضل كمان واحد نوجد بينها مواد كعود كبحنا أنت صور بور أنت صور باتام شرعي doorashada galmudug bacdiisu taagay maantana kaarkii qaadanaya yadhibteen u maray بريت فوتينيا doorashada maxaynu ka filaynaa muwaadin codkaadi taa martay ridayso
maxaynu ka filaynaa waxaan aaminsanahay dhammaan xisbi kasta ahawoo inaynu ka midowno maxaynu doorashada ka midowda waa inaynu waxyaalaha qaranka guud ka heshiinaa dabeetana xisbiyadu ay noqdaan gaadhiga ninkan la doortay noqdaa darawalka yaa si fiican haddaba inoo kaxaynaya yaa darawal wanaagsan aynu ka dhigno ee horta aynu helno doorashooda iyo dowladda aanu doonaynaa caynkeeba u egtaa waynu isweydiin horta oo qaran ahaan looga heshiiyaa waxaan isleeyahay in badan inta iyada loogu canaan badan yahay ee xisbiyada hogaamisa inaanu arrintaa iskaga dhowaan karo isu dhownahay mar dhoweyto halkan qolada kamarada aniga xisoo aad u salaamayna oo laabta saarnay kamarada la qoobeen iyaga caqligooda waxa jira warshada muuse waa kii xirsi maagaya degaa ka dhigay qoladani hawl badan haddana soo kor soo sii saamay taasi waxa weeye waanu doodaynaa halkaa waa kii xirsi ka dooday isma xabanayno waa aragti iyo doon caafimaad qabta dhaliiraha farta la isu saaraya si aanu u wada qaadano go-aan qaran oynu ku heshiisnahay haddaan la wada hadalno doodina qaranku meel gaari maayo haddii aad dooda ka xanaaqdo ama qofku dhaliisha waad qalkantada haddii uu qofku ka xanaaqo hortiisa laga yidhaahdo dee sababnu qaran noqona dee markaa waynu isxabanayna deetana waxaynu gelinahaa beebelyada haddana waa israacaynaa inta aynu lahaayeen ka badan baan isku odhanaynaa fagaara iyo gaarba dadtuna waxa weeye wixii la isu yahay iyo wuxuu dadku ahaana waa meel ra'yiga iyo tala fiican iyo tala fiican weligeedba geedka waa lagu doodi jiray garan maayo waxa geedka xisbiyadiisa hasta looga dhigayo colaad ee dhallinyaradu intay la boobto facebooka iyo laga dhigayo wax la isku dilaayo waa la doodayaa waa wax xisbiyada loo samaystay fikradaha la isu geynayaa waa la shiilayaa dabeetana waxa soo baxaya dantii qaranka la isu geynaya wax kale ma aha ma lihin munaafiqiinta waaye marka maxaynu ka doonaa doorashada qodobkaasaa isu taagaya walaalayaal somalilan awowyaashana iyo aabayaashii dadkii aynu aqoonta ku tooganay oo badankoodu maanta inaga hooseeya iyana mooyaane oo marka la soo qaaday dhammaanteen aan jirno oo u ducayno oo aynu jamanno waxqabadkooda 26 sano ka hor iyaga oo soo maray halka badan iyo dhibaato badan iyo halaag badan waxay go-aan ku gaareen inaynu ka noqono oo aynu gobonimada kala soo noqono midowgii burburay ee xamar iyo muqdisho bixiyay ra'yigaa markii la soo goynaya la soo noqonaya kumuu iman ciyaar kumuu iman caadifo say dadka qaar ku dhigaan kumuu imanin golka fuuq 30 sano khibradii aynu soo aragnay ayaa waxaa waxgaradkii Soomaaliland oo isu dhan oo warqadii burcada lagu heshiiya aad arki doontaan oo hebel kastoo qiimo leh hadduu yahay madax dhaqan ku siyaasiyeed ku culimo oo diintiyo loo leeyahay ayaa dadkii waxay noqotay waxaynu u baahanahay inaynu aayaha dambe ee carruurteeda kuwaynu dhali doono iyo kuwaynu awoodna u noqon doonaa aanay marin dhibaatadii inagu aynu ka soo marray midowgii هذا هو حمام هذا لا كان تويس لما يشي رحيم ayaa iyaga oo ka duulaya dhibaatadii ay soo mareen iyo xanuunkeedii iyo khaladkii dhexdeed ay waxay goosteen in jiilka soo socda Soomaaliland taladiisa iyo qarannimadiisa iyo dawladda uu doonaya noocay tahay iyo sidoo uu noolaanayo ilaahay mooyaane aad u daba fadhiisa oo qarannimadu dhexkeeda dib u qaato oo dib u tisho waxaan isweydiinaynaa hadda maanta doorashada maanta codka aynu ridaynaa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qeexaya qarnimada doona caynka wakaarso codkaas wuxuu isla inay noqoto qarnimada doonayna iyo dawladda ku dhisan codka maanta adreysa ku ka wanaagsan kuwa aynu ka soo gooray ku ka wanaagsan oo ka horumarsan ka aynu maanta hayso waayo ilmuhu wuu koraa geedku wuu koraa wax walba way koraan doorashada inta aynu mariyo codkaas bixinaysaa muwaadin waa inuu koriya qarannimada oo tiirarka qarnimada ee halgowlaha waa inuu kor qaada cidda aad dooranaysa xisbiga aad dooranaysa programkiisa qofka aad dooranaysa
mid waliba waa Somaliland mid waliba waa dadkaagi waa inuu codkaagu gooyaa yaa in horumaray xagee u tahay waxa wax ku dooranaysaa codkaagu ha gooyo ha noqoto Somaliland maxay ku qoraysaa Somaliland qaran waa iyada oo midaysan oo is-aaminta oo qaranka Somaliland ku noqota oo ka baxda waxyaalaha badan ee duruufuhu inoo keeneen ee dhibaatooyinka ee qoyska ee qabiilka ee is-aamin la'aanta ee kala shakiga ee kalsooni la'aanta haddaad qabiil noqoto oo jees noqoto oo cilmi ka shakido oo cilmi noqoto kalsooni la'aanta reerkiina aaminaysa marka tuuladiina aaminaysa gobolka aaminaysa qaranka aaminaysa maxaa dhacaya niyad jab sida in badan ku dhacday oo da'yarteedii oo intay qarankooda u dagaalamay ku lahaayeen badda iyo saxara isku xadeeyay la yaab laha bini'aadam markuu niyad jabo waxa ka runta doorashada waxa uu qabanayo laba waa in uu codkaagu gooyaa dowladda aynu dhisayno ee u dhibanaysaa inay noqoto mid sharcigu hogaamiyo oo loo siman yahay sharciga ka madaxda heer kasta jooga madaxweynaha u sareeya dastuurku wuxuu baneeyay in la saaray impeachment oo maxkamadda soo taago hadduu sharci ku inuu codkaagu daba socdo inay taasi hirgasho oo sharciga ka taajirka iyo ka faqiirka iyo ka reemiga inuu sharcigu u sinaado codkaaga hirgelinaya iskama imanaysa haddaan loo dagaal gelin haddayna ku dhiranaan cod u helin arrintaa hirgeliya ku iman mayso waraaq meel lagu qoray iyo xaashiya iyo duco ku iman mayso waxaa loo baahay markaa u jiro xilkaasi wuxuu saaran yahay aqoonyahanka aqoonyahanku waa baday mid dhaqan mid diimeed mid cilmiga faraha badana kala ayuu saaran yahay laba saddex codkaagu maanta waa inuu gooyay halkaa ay taagantahay Soomaalida kor uga qaado xafiisyada Soomaalida la shaqeeyay ee danta istiraatiijiga laga leeyahay ee inay qaranka saxaan ee imika bilowga ahi inay cududaystaan oo qaranka wax ka qabtaan waa inuu codkaagu wax ka gooyaa oo ay ka mid tahay hay-adda maamul wanaagga iyo hufnaanta dowladda iyo auditka oo aynu noqono qaranyada baynu nahay inaynu ka xalaalono musuqmaasuqa iyo garabeeshiga inanka yara sacrida bartay inaanu ka baqanin yaa shaqo geynaya suldaano u shaqeeyay caaqil u shaqeeyay mid baa idada qabo ay kaxaynaya inuu ka xoroobo ninka mutacallimkii waxay ku imanaysaa inagoo ku tashano u helo ciidan taa u dagaalama ku imanaysa duco iyo hoos laga faatixay codkaagu waa inuu gooyaa inuu qarankana ammaan noqdo oo qof kasta isagoo nabada ku noolaado isla markaana wara xorriyadiisa inuu iscabiro inuu wax dhaliili karo inuu shiri karo inuu dadkiisa qabsan karo waxay ku imanaysaa dadaal iyo aqoon iyo dad isla fahamsan oo ku dagaal kara ku iman mayso inoo kala qoroqolaa inoo kala xisbiya inoo kala fadhina ku iman mayso inuu taahir gelina waa waxyaalaha qalimada lagu dhiso taataasa kagaara codkaagu haddaan wax kala tagin waan wax kala tagin waxaa jira dad ilaahay dalka u diray qaar waxaa la lacagaysta lacag u dayday fooqursiyaadka lacag u raadinaya mid xarrad u raadinaya mid faar u raadinaya dad baa jira ilaahay awood u siiyay naftooda dalka u huraan oo ay u dhintaan oo aan dheef ka helin oo aan carruurtooda danayn oo aan xaaskooda danayn oo aan dhaxli karin oo aan gaajo karin kuwaa dad badan oo yaqaano waa ciidamada intaas oo qabeey waa garasho ay leeyihiin iskama dayn karaan dhiigooda ku talaaliya xabad baa soo dhacaysa dhammaanteen wada jibsanna askarigaas u waxay oo isbigay waa ilaahay baa ku abuuray waa intuu ina dheeryahay haddayna wax una u tanayn fadhigana oo kacano aan salaano markayna soo maraana mahadsan dhaha markuu siiyo joogseena ka taraafeed cayda taagan wax kala hadaan tanayn markuu joogseena dantaadu wadaaye dhegayso laakiin foodkaagu waa inuu wata arrintaa ku dheeraan maayo waqtiga ka qaadi maayo waxaan imanayaa arrinta ay labada xisbi qaar ka hadleen ee muslimiinta horta ereyga muslimiinta kor waa sii loo rogo madaxweynaha khudbada akhriya ku dharay xoogaa dhaawaca fikirkaasi waxa uu yahay haddii uu yahay in laga qaado komishanka
awoodaha shacabku siiyey iyo hawshooda ama lagu fargeliyey haddii uu yahay mid lagu duraayo waxqabadka komishanka oo lagu waxyeeleynayo mustaqbalkaasi uu awooriyo xuquuqda iyo xisbitoona umana jeedo kaasaagtay meelo ka bogsada waxaan dhammaanteen islaamsanahay in dadkii nala shaqaynaya ajnabiga ahaa inagu dhaleen dibudhicii shaki badanna muujiyeen aadayna uga soo xajiyeen waxaan isla qeexay inaynu nahay dad aan la ictiraafsan waxaynu qabanaynaa doorashada iyagoo ina diida mooye farsamo iyo dhaqaalo uga baahannahay waxaan kale uga baahannahay caalamka doorashadeena inuu la socdo oo inagu helno caalamka intay naga ogol saaxiibadeena markhaati inaynu helno doorashadaynu qabanay inay tahay mid dimuqraadi ah oo islaamda oo tacaalka ah cid inoogu markhaatfurto ila joogtana waynu u baahan ayaa loo waxay u baahannahay komishanka oo kow ka ah oo ixtiraamkiisa ah oo loo doorfurtay doorashooyin oo mudnaanta koowaad iyo labada xisbi baarlamaanka mucaaradka anagoo uga dambayna xisbiga xukuumadda arrintaa inaga dhexaysa waxaana walaalayaal loo baahannahay caalamka inaynu caawina farsamada ka xogmeyno mid dhaqaalena ka xageelno doorashadana markhaati cid looga noqota seebeen u helaan ka badan ninkii soo qaadiya fidye kuma jira walaalayaal waa taas idinku gooya oo buuxata tidhahdaba ku dhacay isku turkumana waa ku jiriga ugu dambeyntii waxaan aad umahadnaqayaa oo maanta soo dhaweynaya oo ku faraxsanahay shalay halkan ee anigu waan ka kaftamay xisbiga wadani dhalinyaro aan u arkaya inay ku qaldan yihiin waan si aan gabashada ku sheegay baritan meelaha wixii qaladay galaan wixii wanaagsan ay sameeyaan waa ku soo dhaweynaya horta inay doodaas mid xalaal ahayd saxay waxaan maqlayaa ilaahay waa ka xirsi maanta halkan suuqa ayay keenay ee sanadkiisu ka dhintay labada dood way waa deeladii kale waa iska furta in badan loo doodina waa arkaysaa xirsi oo qaadaya doodiisa marka la sugtay saasaa ku jirta xisbinimada iyo talada sida loo helaya hawl qaadana leeyahay laba toban ka cararayo dad kale weeraya idinka waa saa u doodana taanta saa ku dhaafaya xisbiga gudoomiyihiisa oo odayga loogu weynaa oo odayga dee maaragtay wadan safaaradaha la yidhahda ninka soddon sano meel fadhiya waa dhiigka safaaradaha waa dhiigka doorashooyinka isana rug waa soo taagay hal qodob baa doonayaa inaan saxo oo dood ka furo wuxuu yidhi dowladdii inoo shaqeynaya waad halkan fadhida muuse dhisaysa waa kuu saxaya dowladdu muuse marisa xisbigii kumiye barnaamijkiisa dhisaysa sharciga dimuqraadiyadda iyo siyaasadduna wuxuu sheegayaa siyaasiga laga soo doortay ee heer siyaasiga jooga xisbi ama wadana birta maamulka bataaboto ama wicido birta bataaboto ama kumiyaha noqotay sida caalamka dowladuhu ay siyaasiyiinta xisbiga ee xirarka haya xirarka qarankana way qabanayaan waanay ku qasbeen xisbigana soo saaraan iyo siyaasiga hirgeliya shaksi ma dooranaya maraykankaada aad jeceshahay kelinta kuwa ninka abaaba ku daba taagawada tima kale oo wasiirada dimuqraadiyadda iyo siyaasaddu ma aha siday u cudusha ma aha xisbi warka bartamaya kuwa wixii civil servanta ee shaqaalaha dowladda iyagu ma xeerkeena reebaya waxay ku ekaanayaan inay hawshooda qaranayaan laakiin wixii la doortay ee kabinetka ee baarlamaanka ee xildhibaanada dowladda sida xisbiga ka soo baxaya ee mayrada xisbiga ka soo baxaya sidaa ordina in ka mudgareen waayo aniga ima shakhsi ma dooranayaan barnaamijkii xisbiga ee hore loogu doortay madaxweynaha hore ka dambe ka soo socda xisbi baa ra'yigiisii iyo barnaamijkiisa hirgelinaya markaa xaaj ciidanku xushooda qabsanaya wuxuu dhiganayo mashraxanta inta kale waa ogolaha caraabta iyo kufurshada waxaan ku soo gebagabaynayaa halkii ay dhigeen xisbiyada mucaaradka ayaa dhigay halkii ay yidhahdeen waa ku dhacsana qarannimada markay joogtaa wadadumadu gudeeyadu mar badan aan dhexdeena waxay aanan haddaan xukuumadda iyo kuliyada taa waa naga helaysaa fagaarna waa la fadhiyaa idinka yaa laydinka waaya waxaa ka mid a tan aad tidhahdeen caalamku wixii la siiyey lacag badan oo soomaaliya la siiyo inuu ka daba tagno aniga taas inaan ka daba tagay la saxmaa horta lacagtaa waa la balan qaaday weli loo dhihi laakiin waxaan leeyahay innaga waa isku duuban oo mucaarad iyo muxafid somaliland caalamka waxaynu ka dooranayno
waxaan muqdisho agteeda iyo halqaadkeeda oomina toosay ku doorana waxay xagga u qoondeeyaan jin hala qaato ka daba barteebeena agmal marlaba waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa gobasha kamarag kalsooni bixin wasiiqa xisbiyo xukuumadda xanxanyar baa jirto anaga iyo qolada mucaaradkooda waa ka bogsanaysaa on behalf of the president madaxweynaha oo ka wakiilay dowladda si buuxda la shaqeynaa aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh